bismillaahi raxmaani raxiim kulantii wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalka Bara Aqoon meel kasta aad joogtaan waxaa idin leeyahay xilli walba ay ku tahay ku wanaagsan ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xirfado ama waxyaabo ku jira WhatsApp-ka oo dadka intooda badan aysan ogeyn ama aysan aqoon u lahayn laga yaabay dad yaqaan inay jiraan haddaba maanta waxaan jeclaysanay inaan idin la wadaagno waxyaabo ku jira WhatsApp-ka oo aan isleenahay asxaabtiina way u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan waxaan jeclaysanay 4 cashar inaan maaragtay idin soo gudbino ama 4 waxyaabood afartaas waxyaaboodna aad ay ku anfici doonaan haddii aad ogtahay waad ogtahay haddii aadan ogeynna maanta ayaad ogaan doontaa balse intaan casharkeena ugu gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka aad ku soo biirto oo aad rukumato adigoo subscribe saaraya gambaleelkana furanaya si ay ku soo gaaraan wax walba aan soo gelino mahadsanid haddii WhatsApp-ka aad soo furatid sidan ayuu kugu soo baxaya oo qof walba uu garanaya isticmaalkiisa ugu horreyn akoonti markii aad tagtid saddexdan dhibcood ayaad taabanaysaa setting ayaa ka sii dooranaysaa akoonti ayaa ka sii dooranaysaa privacy ayaa ka sii dooranaysaa oo meesha ugu horeysa haddaba maanta waxaan jeclaysanay 4 waxyaabood ee ku muuqda waxyaabaha ay u kala taagan yihiin tan ugu horeysa oo ah last seen waa waqtiga kuugu dambeysay isticmaalka WhatsApp-ka qof walba yacni ma arki karaa yaan arki karin yaan ogolahay inuu arko intaba meeshan ay ku dhameystiran yihiin last seen-kan waa xilligii WhatsApp-ka ugu dambeysay everyone haddii aan doorto oo hadda way ii dooran tahay qof walba ayaa arki kara xilligii ugu dambeysay saacadii iyo daqiiqadii ugu dambeysay WhatsApp-ka isticmaalkiisa meesha ka sii hooseysa ee my contacts ay ku qoran tahay haddii aan doortana dadka ii save gareysan iyagana lambarkayga uu save gareysan yahay yacni contactska dadka ii ah ayaa arki kara laakiin qof aan isku cusubnahay ama lambarada aan yacni kala save gareysan ma arki karo oo ma ogaan karo xilligii ugu dambeysay WhatsApp-ka nobody haddii aan yidhaahdana cid ogaan karta ma jirto oo qof yacni qofku raba ahaado ama ay save gareysanaado ama yuusan ii save gareysanaan nobody haddii aan taabto cid ogaan karta ma jirto meesha ka hooseysa ee profile photo waa sawirkaaga ku saaran profile-ka WhatsApp-ka haddii aan everyone aan yidhaahdo sida hadda ii dooran ama meesha hadeertaan calaamadda ii saaran tahay qof walba uu arki karaa my contacts haddaan yidhaahdana waa sidii wadadii hore oo kaleeto oo last seen-ka ama xilligii kuugu dambeysay wadadii aa martay oo kale ayaa maraysa my contacts dadka ku save gareysan nobody cidna ma arki karto ayay u taagan tahay aboodka waa waxyaabaha WhatsApp-ka yacni profile-ka meesha ka hooseysa waxyaabaha lagu soo qorto magacayga hebel waxaan ahay hebel waxaan sameeyaa waxyaabahaas yacni xirfadahaaga skillskaaga hobbitkaaga waxyaabahaas lagu soo qoraa ayadan waa sidii hore oo kale my status waa meeshan waxay ka duwan tahay meelihii hore aan soo tilmaamay wax yar ayay ka duwan tahay oo ah statuska wixii aan soo dhigo muuqaal sawir ama qoraal yacni contactskayga way arki karaan haddii aan doorto ama aan taabto meesha ugu horeysa oo my contacts ah haddii aan doorto meeshan ka hooseysa ee my contacts accept waa wixii aan soo dhigo statuska oo yacni sawir ama qoraal ama video wax walba uu noqdaba waxaa arki kara dadka ii save gareysan oo dhan ama dhammaantood way arki karaan markii laga reebo abwaan qorane iyo abwaan rijaal labadaas qof markii laga reebo tigtan oo saxda ayaan taabanaya labadaas qof ma ahayn inta kale way arki karaan marka dadkii aad rabin in statuskaaga arkaan ayaad halkan ka dooranaysaa oo ka calaamadinaysaa oo aad ka qarinaysaa meeshan yacni ugu dambeysana waa share status with yacni qofkii aad u share gareyso oo linki aan aad ugu dirto oo kaliya ayaa arki kara ayay u taagan tahay marka muuqaalkan maanta intaas ayuu ku egyahay waad ku mahadsan tahay muuqaalkan daawashadiisa fadlan haddii aad ka heshay leegaray asxaabtaadana la sii wadaag intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo